بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آدي أدبادي سلامية رمضان كريم وحنكون جرنا طبعاً دحية رمضان ومغفرة دي وي إلهي إنه دم بدافع آمين ده آمين. وحنا هالكي كسي وضعنا سفر كيجي كتجي هويجي أوضل وحيابه عن جعليستي وحيابه كسو أركي سهرو شيءنا وحوين هذا وحن كور رميا ونقور رميا جارهان قلوين كي قربها جورين بور مدة دار كم معنا بل إن كسيو صور وح أنتي أي كسر مغناين كدع كدبي ما تبل وحن كوب بلابي حافظه مجانا بور ما أنا وحن كسر تجيد أو سيد قالب كا لما حافظون أهيد ولولا جري أحمد جري يا حلمي ما أنت وحويان حافظوا أنتي ويكبدينهين ودقموين فرقدان مركا وحويان ده كل واحد الويدين الدقمة ده عدوس عطاوا حقي عدد راعي سب كتي باش الله ينادنا ده بلا الراعين تقال ده الراعيني مركو هراء سي برا حافظها هي ماشي كل يالان أنا يمكن مقعية عن الدين شيء أنت أمهم سنة فردها جرت حافظ الله ينادنا فردها بعد يسويجيه فرده تلو حقي جركا جرا جركا واحد مقع لسوق جابيو جركا ويقارنا نما أنا كنت ذكرينا يا حافظ كويت ليلة هذا جرته واحد جرته حاسلي ده جرته شيخ عثمان باجرة هيا يا باجرته دول كاسور ده وحا وبحا بابور باوبحا كنت كتب باوبحا تاكسي باوبحا مركب الحافظة حاسي waxaan u baahanahay map rasmi ah oo GPS in la sameeyo mustaqbalka damagaadu GPS la marhay iska jira hadda baawur hadaad ka xaysana oo qurbaha ka tagteena horta ha ku dhiiranin inaad gaari ka xayso waayo marka ugu horeysa qolooyinka ka tagay Mareykanka iyo Canada baabuurtu dhinaca laga wada maahay dhinaca kale laga wada qolada Ingiriiska timidun baa steerinka ka wada karta teeda labaad waxa way dariiqyadu aad bay u yaryihiin dadku waxay ku socdaan fast speed baa lagu wada socdaa dariiqyaduna waxa way dariiqyo aad u dhowdhowban weeyaan oo aad u khatar badan marka waxa weeyaan taan waxa oran lahaa nin qurbaha ka tago inaad gaari ku wada boorama bal ha ku dhiiranin inta dariiqyada la waaweynayo ee calaamadaha loo sameeyo calaamadihii stobihii iyo wixii iyo ma jirto wax calaamad la yiraahdaa waxa way waa ninkii ku horeeya ish ka warsa aad dhaqaaqaya traffic ma jira meesha marka waxa way khatarteedu aad bay u badan tahay marka in lagu dhiiradaano kulay ma kuma talinayo waxa kaloo jira magaalada Boorama gaadiidka faraha badan dhibaatooyin badan uu leeyahay accident fara badan baa ka dhaca waliba san la sheegayna baasha kutu qofkay jeeda waxa la yimaba bogsadaba marka balnimada baasha aad tagtaan magaalada iska ilaaliya aad u khatar badan tahay waxa kaloo magaalada ku soo kordhay oo gaadiidkaasi ay keeneen iyo dariiqyadu magaalada Boorama markuu roobku da'o waxa roobku markuu qaado galala law woolan jiray waxa weeyaan kaba dacaysan ku baxayso suuqku markiisa meesha doonto waa imika markuu roobku doo ninkii yaqaana waa dhoobe waxa weey dhulku dhooba meedan weeyaan baabuurtii baa dhooqadii sii kharibta marka maalinta dambe ay cadceedu qabato dhulku qallalana bahal siiga la yiraahdo baa indhaha ka tuuraysa marka mar hada qolooyinka qurbaho arrimaha uu si diyaar garoobo balkaba iyo qalabkii loo baahnaayo arrimaha ka xidhan lahaydeen u si diyaar garooba bariga hore dhagax baa laga cabanaya laakiin maanta dhoobay isku bedeshay waxa kaloo jira nimanka qurbaha ka tagay warniyo dhulkii waxa soo baxday cadceed aan jirin waagii hore waa bahal original oo cadaanka aad ka yaabaysa iyo kuleylka waa loo soo xagaa bixi jiray waxaan u maleynayaa inta mustaqbalka in Boorama laga xagaa bixi waxyaabaha cajaa'ibka waxa weeyaan Boorama oo air condition la isticmaalayo oo marawaxad la isticmaalayo oo talaajad la isticmaalayo waa adduun kale cajiib marka waxa oran lahaa war bal hada koofiyad yaan la hilmaamin waliba ragga bidaarta anu hada koofiyad baan xidho waxaan u xidhayna waxa weeye bahash bidaarta baa la caayba oo la caayo ablihii baa caaya leeyay marka waxa mar hadii la caayo waa la qariyaa marka nimanka bidaarta leh kullayba waa inay qaataan koofiyad cadceedda ka celiso oo sida loo xidhanaya tusaale loo xidho ka celisa cadceedda waa inaad qaadataa muraayad
sun glasses waa inaad sii qaadataan waxa weeyaan cadceedu aad boo kulu tahay waa original laakiin vitamin D fiican baad ka soo helaysaan oo aad u fara badan taasina waa arrimaha aan leeyahay nimanka qurbaha iyo haweenka qurbaha ka tagaya dadka qurbaha ka tagaya way la kulmi doonaan waxaan hoteelada jira Boorama hoteeladu aad u badan yihiin hoteelada qaar baa hotel meel la seexdo iyo meel wax lagu cunayo restaurant leh hotelkiina leh marka rice oo kale saw oo kale hotel uu leeyahay in la yiraahdo shimbir oo kale Oslo oo kale waana la seexdaa raashinkana waa ka iibsan kartaa laakiin waxa jira kuwa kale oo fara badan oo ay kamid yihiin kula yiraahdo galad ku ay tawxiid kamid yihiin iyo kuwa Boorama jirta oo isagoo ahaan jira malaha guri muxuu ahaa villa marka way badan yihiin laakiin kuwa ugu muhiimsan oo nin iyo jeebkii xagga lacagto waa nin iyo jeebkiyo haddaad waxoogaa haysatana waxa tagi kuwa sareeya sida saw iyo rice oo kale haddii kalena waxaad iska tagi kuwa jeebkaaga oo Oslo iyo galad iyo oo waliba ad yacna la gorgortamayto dad muddo joogayso discount lagu sameeyo marka taasina waa tan laakiin service ka dhamaantood waa service heer sare wax walba adigoo fadhiya ayaa lagu keenayaa marka rag badan baaba waxay yiraahdeen war qurbihii la isku ma adeegayna halkan waa la isku adeegay meel lagu dhasto ayaba tahay halkan waxa kale oo inta ay raaca arrin dhalinyaradu ka caban jirtay oo maqli jiray dhalinyarada ka maqli jiray qof weyn kama maqlin laakiin dhalinyarada ka maqlay oo uu ku jiro wiilan dhalay oo Cabdikariim la yiraahdo samarkii hore xagaagii hore Boorama tagay wuxuu ii sheegay in arrinka ugu daraa uu lahaa musqusha musqulaheena caadigii aan saa ugu fadhiisan jirnay ama beeraha baa la iska fadhiisan jiray dadkii qurbaha ka tagaan kullay dhalinyaradaas ay sheegto dhibaato kala kulmeen anna tiiteedii ba kala kulmay oo ma fadhiisan ma kambaruusan karays markaad kambaruusato dib baad u dhacaysaa marka waxay kugu kalifaysaa maalmaha dambe inaad markaad gasho dharkoo dhan iska saarto surwaalkaad iska bixiso waxoo dhan ba halkan aad surato kadib markaad xaajadaada duulato marka arrinkaasina uu jiraa iska ilaaliya laakiin hoteelada intooda badan waxay ku fiican yihiin waxay leeyihiin kii yaraa dheeraa lagu fadhiisanayay intooda badan leeyihiin laakiin meelaha qaarkood ama xaafadaha iska ilaaliya intaydan ku fadhiisan dharka iska sii bixiya taasina waa tala jirta weeyaan waxa kale oo aan u riyaaqay boqolkiiba boqol aan u riyaaqay waxa weeye war marka warrama magaalada Boorama oo dadka ku nool una ka yareyn anu hadina kama badnay kama yaro horta konton kun hadday ugu yaryihiin weeyaan oo haweenka jooga boqolkiiba 99 anad wajigooda ba arkayni way wada naqaaban yihiin si u dhan yihiin marka waxaan idhi wallahi niyaho diintiiba dhulkan imikuun bay timid mise dhaqan cusub baa yimid kulay xagga diintan u badiyay marka aanu dhaqan odhan maayo innaga horta dhaqankeeni ma ahayn in wejiga la qariyo laakiin ma dahara minhaa bay ahayd imika laakiin waa la qariyay wejigii waa la qarshay taasi markaa waxay keentay hablihii ama haweenkuba guud ahaan waxay ka badbaadeen horta siigadii iyo cadceeddii labadiiba way ka raysteen hadday qurux badnayd hadday foolxun midna lama arkayo marka waxa weeyaan waa hu wanaagsan aad bana lagu riyaaqay nimanka wadaadadiina way ku mahadsan yihiin arrinkaasi si uga shaqeeyeen tay xigta waxa weey dharkaasi ay haweenku xidhaan warnimo haddaynu reer Boorama nahay waxaan u baahanahay inaan shirkad samaysano shirkad aan samaysano aynu dharkani haweenku xidhanayaan inaguna aan ka soo dhoofino China ama Japan halkii lagu sameeyo inta badan horta waa China laakiin waxa weeyaan mashruuc successful way wallahi mashruuc successful way waayo ina tayar ee laba jirka ilaa islaanta ugu weyn 100 jirkii waa la wada xidhay waa uniform marka lacag baa ku jirta meesha nimayo insha Allah halkaas ka sii wadayna barito wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh